السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشر كلابات وأنكو برنينا chest radiograph أما لو يقانو chest x-ray. مركا انت آدن أخرين أما آدن اسكو دايين إن آد شرحضو chest radiograph وحا مهم إن oo technical quality-ga ama tayada uu leeyahay sawirkaas oo macnaha ina isku haleyn kartid iyo in kale in aad jeegraysid macna ma ahan in oo physics-ka ama in expert ku ahaatid sida loo qaado ama technical-ka macnaha muxuu ahaa in aqoon u leedahay laakiin waxa waaye si dhaqso ah oo fudud u jeegraynaysid quality-gaas in waxyaalo muhiim ah aadan miskareynin marka interpretation aad ku sameynaysid chest radiograph marka waxaa dul maraynaa dhowr point oo muhiim ah oo 30 seconds aad ku jeegareyn kartid quality-giisa inaad isku haleyn kartid iyo in kale marka quality-ga koowaad waxay tahay in oo chest radiograph aad fiirinaysid in uu yahay posterior macna PAV inuu yahay ama APV inuu yahay cashirkii koowaadna waa kusoo sharaxnay PAV waxaa laga wadaa marka x-ray beam oo dhankan ka imaado x-ray beamka ayaa wuxuu u socdaa dhankan meeshan waxaa noogu jira qofka patientiga ah kadib beamkaas ayaa wuxuu ku dhacayaa marka hore maxaa dhanka gadaal filmkan wuxuu dul saaran yahay xabadka sababta arrintan muhiimka ay tahay ayaa waxay tahay beamka markii uu ku dhaco muxuu ahaa dhabarka wuxuu kadibna ku dhacaya wadnaha wuxuu dul saaran yahay filmka ayuu aad iyo aad ugu dhow yahay ama digital detector ayuu aad ugu dhow yahay taas marka wuxuu ku tusinaysaa macnaha accurate representation ama size-ka ama muxuu ahaa balaca uu la ekahay wadnaha oo runta ah ayuu ku tusayaa filmka waa arin oo si fudud aad ku jeegareyn kartid toosh aad soo qaadatid oo qol mugdi aad gashid oo gacantaada aad u dhawaysid tooshka mugdi aan arkay aan dhahay shadow aad arkaysid wuxuu noqonayaa gacantaada in aad u weyn tahay laakiin haddii gacantaada u dhawaysid darbiga oo ka tooshka aad shidid gacantaada waxay noqonaysaa yar oo u dhow sida oo size-ka saxda ah oo gacantaada taas waxay tahay in oo muxuu ahaa haddii beamka uu ku dhaco meel u dhow macnaha meesha ugu horeysa sawirka wuxuu noqonayaa ama filmka wuxuu noqonayaa in oo uu tusiyo macnaha in uu weyn yahay shakligii oo wadnaha laakiin haddii filmka iyo wadnaha isku dhow yihiin size-ka saxda ah oo wadnaha ayuu ku tusayaa sidoo kale markii PAV la qaadayo radiology department ayaa lagu qaadaa oo qofkii oo radiographer oo uu ka qaado asagoo macnaha oo iskaabilkiisa oo laga leexiyay samabadii oo qofkii loo sheegay inuu neefta qaato kadibna neefta isku celiyo oo inspiratory phase-ka oo la jeegareeyo laakiin APV markii la qaadayo waa qof xanuunsan oo intensive care ku jira emergency oo sariirtiisa fadhiya ayaa waxaa loo keenayaa x-ray socda waana sawirkan oo kale sawirkan aad arkeen waxaa waaye APV taasna waxay tahay waxaa arkaynaa in oo wadnihii oo size-kiisa aad u weyn yahay waxaa arkaynaa mediastinumka inuu weyn yahay waxaa arkaynaa rotation meeshan inuu ka jiro oo qofkii oo iswareejiyey marka tan waxay ku sheegaysaa in technical quality-ga oo AP iyo PA aysan isku mid yihiin oo mar walba quality-ga uu sareeyo PA laga wado in qofkii x-ray beamka marka hore uu ku dhacayo dhawarka gadaal filmka iyo wadnahana isku dhow yihiin laakiin haddii qofkan aan soo jeedin hadda oo xabadkiisa dhankaan aan u jeedino dhabarkiisana oo filmka uu xigo wadnihiisaan oo kale ayuu noqonayaa in oo loo maleeyo in qofkii uu ku dhacay cardiomegaly ama mid ka mid ah right hemithorax ama left hemithorax oo qaybtan macnaha ama qaybtan oo density-giisa oo loo maleeyo in oo mid kale uu ka badan yahay ama in costophrenic angles waxaa laga wadaa costophrenic angles meeshan oo aad iyo aad critical u ah markii chest x-ray oo interpretation lagu sameynayo in oo la arki waayo taasoo marka waxay keenaysaa in APV quality-giisa uusan gaarsiisnayn PAV oo muhiim ay tahay inaad isweydiisid sawirkaan aan arkayo APV miya ama PAV marka APV haddii uu yahay sawirka image-ka waxaa xasuusnaata inuu yahay meel oo uncontrolled environment ah macnaha oo qofka xanuunsan oo neefteeda uusan qaadanaynin oo iswareejinaya xanuun uu haayo ama qofkii oo radiographer-ka ahaa oo
watay macna x-ray oo la socodsiinayo emergency department hadii uu yahay oo isaga xataa macna uusan ku aadin oo sax ah qofka dhabarkiisa oo meeshii loogu talagalay in oo cardiomegaly diagnosis loogu sameyn karin APVU saan soo sharaxnayna sababtoo ah wuxuu ka dhigayaa wadnihii inuu weynaaday oo kale oo qalad ah in oo qofkii uu iswareejiyo oo xanuun haya dartiisa oo kale taasoo keenta in oo trachea deviation oo kale uu ku sameysmo laakiin still macna inkastoo oo waxyaalahan oo negative uu leeyahay APVU still laakiin qof xanuunsan oo meel emergency ku jira aad iyo aad macna tool oo muhiim ah waa information ku siinaya laakiin ay tahay ina ogaatid in APVU uu yahay oo waxyaalaha qaar aan diagnosis ku sameynin hadii waxyaalaha qaarna oo aqal macna oo wax oo aqal galay uusan ahayn oo waxyaalaha qaar shadow oo shaki u kaaga jirane in qofkii PA laga qaado ama CT scan hadii oo qofka oo aad iyo aad xaaladiisa u daran tahay waxa muhiim ah hadii oo chest radiograph uu yahay APVU in saddex posterior ribs oo laga arki karo clavicle-ka korkiisa kanoo kale waxa waaye clavicle-ka dushiisa in laga arki karo saddex muxuu ahaa posterior ribs waxa arki doonaa sida loo tirinayo posterior ribs iyo anterior ribs soo marka saddex posterior ribs in la arki karo clavicle-ka korkiisa posterior ribska macna ribska oo gadaal waa arki doonaa cashir kale aan ku baran doonaa sida loo tirinayo macna isku wareerinin hadii aadan aqoon posterior ribs iyo anterior ribs waxa ay kala yihiin sideed waa in la arkaa oo posterior ribs ah soo marka muhiimadu waxay tahay markaa ogaatid PAVU inuu ka tayo sareeyo APVU waxa kale muhiim ah inaad iska ilaalisid qofka hadii APVU yahay rotation inuusan sameynin macna qofka inuusan iswareejinin oo shucaaci uusan macna gees dhabarkiisa u marin taas waxay keenaysaa in aadan si sax ah u aqrin karin muxuu ahaa radiograph ama x-ray sababtoo ah trachea wuxuu ekaanaa inuu gees u wareegsamay sambabkii oo kan midig ama kan bidix waxa laga yaabaa in oo density-giisa uu noqdo in oo pathology ama meeshii uu ka jiro macnaha muxuu ahaa jiro ayadoo uusan wax jira ah ka jirin sababtoo ah qofka iswareejiye dartiisa waxa laga yaabaa in density-ga oo midka qaar oo sambabka u muuqdo in oo density-giisa uu batay oo gray oo kale oo zaid ah uu noqdo oo cad oo kale xiga oo loo maleeyo meeshii inuu ka dhacay waxa loo yaqaan collapse ama consolidation sidoo kale waxa laga yaabaa in aad u maleysid cardiomegaly meesha inuu ka dhacayo qof wadnihiisa inuu weynaaday oo heart failure uu ku dhacay sida uu jeegareyn kartidna waxay tahay in oo markii gadaal u fiirsid spinous processes waa arki doonaa sawir noo imaan doono waa in oo macnaha line oo vertical ah ama dherer ah oo toos uu sameysmo labada clavicle dhexdiisa sawir noo imaan doona ayaan ku baran doonaa soo marka waa arrimahan oo waxa fudeed aan ku jeegareyn kartid in APVU yahay inuu qofka iswareejiyay sababtoo ah hadii hadda oo sawirkan aan fiirin macna sawirkan waxa waaye PAVU oo qualities aad iyo aad u fiican yahay oo wax qofkii rotation uusan sameynin waxa hadda soo sharxayna waxay tahay waan dhahnay qofkii rotation uusan sameynin rotation qofkii uusan sameynin waxa lagu ogaanayaa waxay tahay clavicle-ka inta waxa arkaynaa clavicle ku yaala macna laftaan oo waxa waaye oo markii oo qortaada hoostiisa ku taala oo gacantaada ku taaban kartid oo garabkaaga tagaysa inta waxa waaye labada clavicle soo marka waxa muhiim ah in spinous-kaas lafahan oo laf dhabartaada gadaashooda ku aadan in oo equal distance uu jiro labadaba saarkeena kan waxa waaye had equal distance uu jiraa taas waxay noo sheegaysaa rotation qofka inuusan sameynin oo iswareejinin hadduu iswareejin lahaa dhanka midig hadduu isku wareejiyo dhankan ayuu u dheeraan lahaa haddii bidix isku wareejin lahaana dhankan ayuu u dheeraan lahaa saarkeena marka dhexda ayuu ku aadan yahay taas waa marka aan ku gareyno rotation inuusan jirin sababtoo ah haddii rotation uu jiro oo qofka geeskan oo kale isku wareejiyo waxaa laga yaabaa tracheahan oo hadda oo clear aan u arkeyno inuu geeskan oo kale imaado soo marka trachea haddii deviation uu sameeyo jirooyin badan ayaa jiro oo diagnosis loogu sameeyo waxa loo yaqaana tracheal deviation ama tubadan habada soo qaada loo yaqaana trachea hal dhinac ay u baxdo sida pleural muxuu ahaa effusion collapse muxuu ahaa waxyaalo badan macna foreign body inuu qofka wax inuu dhuunta u gashay kadibna muxuu ahaa sanbabada wax uu aaday waxaas oo marka qalad ka imaan kara ayuu yahay qofkii oo gees ku wareejiyay oo kaliya oo meeshii wax oo jira aysan ka jirin saarkeena marka waa in oo muxuu ahaa vertical line u ahaada oo labada clavicle markii aad fiirisid
dhexda inuu ahaada si aan u aragno central trachea inuu yahay oo geesgees uusan qofkii rotation sameynin. inta marka waxaan arkaynaa hadda tracheahan haddaan fiirino kii hadda oo aan soo arkaynay sawirkii tracheahi waa arkaynay meesha uu joogo. waxaan arkaynaa meeshaan tracheahi haddii oo labada oo muxuu ahaa clavicalka aa fiirisid in trachea geeskan uu soo jeeda macnaha uu soo aaday right hemithorax. waxaa kaloo arkaynaa in oo muxuu ahaa densityga oo meeshaan oo muxuu ahaa sambabka oo geeskan densitygiisa inuu ka badan yahay kan waxaan arkaynaa lucent inuu yahay. macnaa lucent waxay tahay in oo radiation ama shucaaci badana uu gudbay laakiin wax badan meeshaan uu ku haray. waxaa kaloo arkaynaa haddii ribska aan fiirin aan tirino in ay yar yihiin inta rib aan arkayno. haddii kan ala barbar dhigtid inta rib aan arkayno oo arkaysaa meeshaan, laakiin kan haddaa la barbar dhigtid dhowr rib oo kaliya aan arkaynaa. sababta arrintan ay ku dhacdana waxay tahay cashirkan markii aan bilaabayn hadda waxaan soo dhahnay waa inaad jeegaraysa qualityga ama technical quality image uu leeyahay. sababtoo ah imagekan waxaa waaye AP view. AP view waxaan soo dhahnay wuxuu ku keenayaa in oo cardiomegaly aa u malaysid in meel ka mid taha densitygii oo densitygiisa uu bato oo u malaysid in uu jiro consolidation ama collapse, in oo tracheal deviation uu dhaco oo trachea gees uu baxo oo loo maleeyo in jiri ay jirto, in oo muxuu ahaa mediastinumkii oo loo maleeyo in uu zaa'iday, in hyperlucency uu ka jiro muxuu ahaa left macnaha hemithorax ama left lung. waxaa arkaynaa in oo costophrenic angleska oo loo maleeyo in oo muxuu ah clear uusan ahayn. soo marka waxaanu dhan waxaa muhiima marka inaad jeegaraysid inta aadan xataa isku dayin interpretation inaad samaysid si oo macnaha rotation oo qalad ah ama PAM AP view aadan u jeegaraynin oo waxyaalo qalad ah aadan macnaha diagnosis ku sameynin. waxaa kaloo muhiim ah markii clavicalka aa fiirisid in oo apiceska ay ka sareeyaan clavicalka. waxaan arkaynaa hadda waxaa loo yaqaano lordotic view. lordotic view waxay tahay in qofkii geesgees rotation oo si oo ku talagal ah loogu sameeyo oo clavicalkii uu ka dulmaro apiceska, macnaa apiceska inay ka hoos maraan clavical. laakiin sida caadiga ah clavicalka ayaa ka hooseeya apiceska, macnaa apiceska ayaa ka koreeya clavicalka. soo marka kan haddii ku talagal uu yahay oo la rabo in la arko apiceska oo loo qaaday waa mid gooni ah, laakiin haddii oo qalad oo rotation patientka uu sameeyey ay tahay asana qalad ayaa ka imaan kara. sababtoo ah haddii clavicalka kor uu jiro mar walba waxaa isweydiisaa in oo mediastinumka oo balaartay oo qalad uu yahay, in cardiomegaly oo qalad ah in aad diagnosis ku samaysid, inaad u malaysid lung volumeka in oo u yaraaday oo fibrosis oo kale uu ka jira meeshii, in costophrenic angleskii aadan si oo clear ah u arki karin. marka waxaasoo dhan marka waxaa muhiim ah quality haddaad jeegaraysid muxuu ahaa waa ka ilaalinaysaa. waxaa kaloo muhiim ah in oo qofka uu neefsaday, macnaa neef oo ku filan qofka inuu neefsaday. haddii qofkii inuu neefta qaataa kadib isku celiyaa markii oo la sawiraayo, sababtoo ah wuxuu ku tusayaa volume badan oo sambabka ah. laakiin qofkii asoo neefsanin ama asoo oo macnaa neeftiis banaanka u bixinayo uu neefsado, taas waxay keenaysaa in oo technical qualityga uu yaraado. sababtoo ah waxaa dhici karta in oo mediastinum u weynaaday oo kale meeshii uu noqdo, in lung volumekii uu yaraado, taasoo ku tusaysa macnaa in oo ribska qaar aadan macnaa oo 9 ilaa 10 ayaa laga rabaa inaad tirin kartid oo posterior ribs ama 7 oo anterior ribs ah inaadan arki karin. diaphragmkii inaadan arki karin ama in oo qalad oo uu ka noqdo ama aragtid muxuu ahaa flatten diaphragm waxa loo yaqaano oo tusaysa in oo volumekii oo sambabkii uu yaraaday. soo marka waxaa muhiim ah marka qofka haddii oo radiograph la saarayo in neef fiican uu qaatay. haddii aa aragtid in oo aadan tirin karin ilaa 9 posterior ribs ama 7 oo anterior ribs ah, waa in qofkii lagu celiyaa oo si sax ah loogu qaadaa. sababtoo ah ma isku halayn kartid in meeshii uu ka jiro macnaa volumekii inuu soo yaraaday iyo in uu jiro macnaa cardiomegaly ama mediastinum widening ma ogaan kartid in oo arrintaas ay jirto. sidoo kale waxaa muhiim ah in oo exposure-ka ah
macnaha exposure waxaa laga wadaa inta radiation oo qofka la siiyey markii oo raajada la saaray, inta shucaaca qofkii la saaray. haddii shucaaca tira badan qofkii la saaro, sanbabkii o dhan wuxuu noqonayaa wax mugdi ah oo aan la arki karin. haddii radiograph macnaha oo x-rayga oo qofkii oo macnaha la saarayna oo wax yar u yahay, wuxuu noqonayaa wax cad oo zaa'id aad macnaha oo aan kala cadaynaynin ama muxuu ahaa density kala duwan aan ku tusi karin. macnaha wuxuusan ku tusi karin in oo macnaha meesha uu yahay borderka oo wadnaha meel uu yahay. haddii meeshii uu jiro muxuu ahaa pneumothorax oo laga wado in oo sanbabkii uu soo yaraaday oo aari meeshii ay kasoo buuxsantay. macnaha sida caadiga ah sanbabka ilaa geeskan ayuu joogaa, sababtoo ah visceral pleura iyo parietal pleura oo ah labada bac oo mid wuxuu ku daboolan yahay sanbabka, midna wuxuu ku daboolan yahay cagekan oo thoraxka ah, way isdul saaran yihiin. laakiin haddii meeshaan aari ay kasoo buuxsanto, waxaa kasoo qaada qofkii xabad inay ku dhacday oo kale, ama qofka toore in la geliyey ama surgery in lagu sameeyey, aari ayaa waxay kasoo galaysaa xabadka banaankiisa. aaridaas waxay keenaysaa inay soo riixdo sanbabkii ilaa sanbabkii asalan uu kasoo yaraado oo meeshaan lasoo ekaado oo soo yaraado. macnaha pneumothorax cashar kale ayaan ku baran doonaa waxa uu yahay. soo marka haddii marka taas ay dhacdo oo technical quality-ga uu xun yahay oo exposure badan qofkii lagu sameeyey, meeshaan mugdi ayuu noqonayaa. taas waxay keenaysaa in aadan si sax ah diagnosis ugu samayn karin. sida aad ku jeegareynaysan waxay tahay in oo muxuu ahaa vertebrae-ga oo wadnaha gadaashiisa haddaa fiirsid waxaa arkaynaa vertebrae in oo aa arki kartid macnaa intervertebral disc waxaa waaye meel oo madow oo kale ah oo macnaa aari oo kale soft tissue uu ka jiro. meeshaas ayaa marka ayaa jeegarayn kartaa. waa inaa aragtaa rectangular shape oo vertebrae-ga ah iyo intervertebral disc oo shadow oo muxuu ahaa lucency ah oo macnaha oo ku sahlaya marka in uu qiyaas karta. haddii aadan arkaynin marka vertebrae-ga oo ka dambeeya wadnaha gadaashiisa ah, taas waxay tahay technical quality-ga inaadan isku halayn karin oo diagnosis aadan ku samayn karin. tan aan sharxaynay tan waaye marka haddii exposure badan qofka lagu sameeyo ama time badan oo dhowr millisecond oo extra ah radiation dii qofka lagu sameeyo ama dose badan oo qofkii la siiyo, waxay keenaysaa chest radiograph oo mugdi zaa'id ah. soo marka hadda ma sheegi kartid in qofkan aari banaanka ay kasoo gashay, gudihiisa aari ay kasoo buuxsantay oo sanbabkii oo soo yaraaday, ama in oo uu yahay macnaa over exposure oo x-ray oo waqti badan oo lagu sameeyey muxuu ahaa exposure badan ama time oo waqti dheer oo lagu sameeyey. ma arki karno marka xididadii oo sanbabada dhan lung marks ma arki karno, waxaanan arki karin pathology-gii oo meesha ka dhacay sidoo kale. soo marka si dulmar ah marka waxaan soo dhahnay si aad ku jeegaraysid marka quality-ga oo filimka uu leeyahay ama chest radiograph, waa inaad arki kartaa ilaa 9 ama 10 rib oo posterior ribs ah. posterior ribs waxaa laga wadaa cashirkii koowaad haddii aad soo baratay saan hor usoo sharaxnay, xabadkaaga waa 3D macnaha dimension, macnaa xabadkaaga ka bilow sternumka ilaa gadaal vertebrae-ga waa 3D. sawirkaan arkayn waxaa waaye 2D, macnaa manoo sheegi karo wadnahan meesha macnaa wuxuu leeyahay width, sanbabkaaga width uu leeyahay inta ka bilaabanaya ilaa gadaal tagaaya, in meeshan hore uu yahay, dhexda inuu yahay ama gadaal inuu yahay manoo sheegi karo macnaa pathology. sidoo kale ribskaaga haddaa fiirsid kuwa qaar gadaal ayay kasoo baxaan, kadibna hore ay usoo socdaan ilaa meeshan ay imaanayaan. saan ku arki karna waxay tahay meeshaan haddii aan tirino posterior ribs oo ah kuwa gadaal ayaan si fiican u arkaynaa, sababtoo ah beamka ayaa marka hore ku dhacaya gadaal. qaabka loo tirina waxay tahay in oo kan uu yahay rib 1 oo posterior ah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oon arki karno meeshan aan ku qoray macnaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. kuwaas waxaa waaye posterior ribs. macnaha sawirka wuxuu ku tusayaa ribska macnaha lafihii gadaal ka soo baxay, feerihii gadaal ka soo baxay iyo kuwa hore ayuu ku tusayaa, laakiin waa adiga in oo maskaxdaada fahamsiisaa. kuwa gadaal waxaa waaye kuwa oo iftiinka zaa'idka ah. kuwa hore haddaan tirin waxay noqonayaan kuwan 1
labo saddex afar shan lix toddoba. Kan toddobada badanaa haddii sawirka uu yahay qualities uu fiican yahay, kan toddobaad wuxuu crossing ku sameeyaa diaphragmka ayuu cross ku sameeyaa. sidoo kale labada clavicle markaa calaamadaysid, trakeyaha waa inuu central ahaada ama spineka waa inuu central ahaada si lagu jeegareeyo rotation inuu jiro. labada trachea labada clavicle calaamadeey, kadib spinous process waxaa laga wadaa lafahan oo spineka gadaashiisa ah, macnaa laf dhabarta gadaal lafta soo taagan waa in equidistance uu jiraa labada clavicle. haddii saas uu yahay waxay noo sheegaysaa inuusan rotation jirin, oo haddii aan aragno macnaa deviation oo trachea ah in uu yahay muxuu ahaa tracheal deviation oo collapse uu jiro ama pleural effusion inuu jiro, macnaha in si oo confident ah waan isku halayn karno, aan dhahi karno meeshaas waxaa jiro ma ahaan rotation. Waxaa ku jeegaraynaysaa labada clavicle in oo equidistance uu jiro line oo kasoo baxaya markii aad sawirtid spinous process. sidoo kale si oo loo jeegareeyo quality-ga ama exposure inuusan jirin over exposure ama under exposure, waa inaan arki karnaa vertebrae-ga oo ka dambeeya wadnaha gadaashiisa ah. so marka waxaan arkaynaa in si faintly aan u arki karno dhowr muxuu ahaa vertebrae oo ka dambeeya wadnaha. so marka rotationka waxaa kuu sheegaya inaad jeegaraysid in labada clavicle equidistance uu jiraan vertical line oo spinuska ah. in vertebral bodieska uu gadaal ka jiro wuxuu kuu sheegayaa in over exposure ama under exposure inuu jiro. anterior ribs ina arki kartid, posterior ribs ina arki kartid, muxuu ahaa waxaasna marka waxay ku tilmaamayaan in oo volumekii oo sambabkii macnaa volume la isku halayn karo inuu yahay, in cosophrenic angles arki kartid, muxuu ahaa in abscesska arki kartid. macnaa abscesska hadaadan arki karin qayb dhan oo sambabka ah ayaa macnaa kaa qarsan. sidiisba ah sambabka haddii hadda oo aan sawirno qaybtaan oo dhan ayuu noqonayaa sambabkaaga. waxaanoo dhan arkayno waa sambab, macnaa gadaal ayuu jira macnaa wadnaha marka intuu soo jiro gadaal waxaa ka dambeeya muxuu ahaa sambab kale. sidoo kale waxaan arkaynaa sambab kale oo weyn oo ilaa dhankan asagana oo soo jira. so marka haddii meeshan aadan arki karin oo clavicalkii oo qofkii macnaa rotation oo gadaal oo kale isku qalooxiyo oo meeshan aadan arki karin, haddii meeshan uu ku jiro macnaa cancer waxaa jira tumor oo loo yaqaano Pancoast tumor. marka Pancoast tumor haddii meeshan uu ku jiro ma arki kartid. haddii pneumothorax meeshan uu ku jiro ma arki kartid. haddii effusion meeshan uu ku jiro ma arki kartid. haddii consolidation meeshan uu ku jiro ma arki kartid. so marka in oo hal minute aa istaagtid oo aad jeegaraysid intaan oo macnaa shay oona kugu qaadanaysa 30 seconds oo kale, waxay kaa saacidaysaa in oo waxa aa sharaxday uu yahay wax sax ah. macnaa posterior ribskana arki kartid, anterior ribskana arki kartid, vertebral bodies oo ka dambeeya wadnahana arki kartid, in rotation uu jirin oo labada muxuu ahaa clavicle equidistance uu jiraan, macnaa distance isku mid ah uu jiraan vertical line.